kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta waxa uu ka dhacay hoolka magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. kulankaasi ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Barre Maxamed. kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii ay hore uga socon lahayd dowlad goboleedka Hirshabelle ay dowladaha dhigooda ay u gaari lahaayeen. gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa ay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ugu baaqeen in ay madaxweyne daacad ah u doortaan dowlad goboleedka Hirshabelle oo hogaamin kara. waxa kale ay sheegeen in gacmaha ay isqabsadaan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay hal meel ka soo wada jeestaan. ugu horeen waxa meeshaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle iyaga oo sheegay in xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay isku duubnaadaan. xildhibaanada Hirshabelle ee ajiibay ee isu yimid ee sida quruxda badan uga soo qayb galayna waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin. xildhibaanadeena sharafta leh waxaan ognahay inay shaqo ballaaran oo aad iyo aad u weyn inayna hor taalo asbuucan gudihiisana aan rabno inaan guda galno. waxaan rabnaa inaan ku adkaano go'aan qaadashadeenna, inaan ku adkaano haybadda iyo sharafta aan leenahay ee reer Hirshabelle mar kastaba lagu ammaano waxqabadkooda quruxda badan leh. walaalayaal annaga waxaanu nahay baarlamaanka Hirshabelle waqtigii aan meeshaan muxuu ahaay ugu dheeri waad garan kartaan. hal sano ayaa hadda mataqaana ayaan noo xirmaya si wanaagsan baa loo soo wada shaqeeyey. binaadanka mar haddii meel ku wada kulansan yahay dhammaantiisma wanaagsanaan karo, waxa qaloocan lama weynayo, laakiin dadka wanaaggiisa ayaa badan. intaasaan kusoo gudbin alxamdulilah rabbil caalamiin. baarlamaankeena waa baarlamaanka keliya ugu sharafta badan muxuu ahaa hadda aan isleeyahay baarlamaan jira. ugu dambeyn waxaa ka hadlay meesha gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed isagoo ugu baaqay in ay isqabsadaan gacmaha ayna ka wada shaqeeyaan midnimada Hirshabelle. waxaa kale oo kula dardaarmay in ay doortaan madaxweyne daacad ah oo hogaamin kara dowlad goboleedka Hirshabelle. waa kan gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ka hadlaya arrimahaasi. xildhibaanada sharafta leh mar labaad mar saddexaad waxaan idinka mahadcelinayaa hawsha aad qabateen oo dhinacyo walba taabanaysay iyo sida Hirshabelle aad ugu istaagteen inay badbaado iyo sida aad ugu istaagteen muxuu ahaay ku dhaqanka dastuurka iyo xeerka ayaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa. waxaan idinka rabaa hawl haddii Hirshabelle maanta halkii sano wax yaraa ugu dhiman. waxaan rabaa xildhibaanada halkaa fadhiya sharafta leh dadka waa kala fikir duwanaan karaa. dadka waa xildhibaan waxaa loogu talagalay qof walba fikirkiisa inuu dhiibto. fikirkaad kula duwaneedeen ayaa waxaan rabaa maanta maadaama shaqo badan in hor taalo fikirkiina inuu hal wajahaad maro oo aad midoodaan oo aysan jirin kudlada hebel iyo kudladaana tan iyo gruubkan inaysan dhicin. waa idin mahadcelinayaa. waxaan isleeyahay dardaarankaana waad aqbali doontaan. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka codsanayaa inaad midoodaan mustaqbalka Hirshabelle inaad midoodaan. waxaan hor yeelna hawl aad u fara badan oo ay tahay doorashooyinkii oo horta waxaan rabaa hortiin inaan ka caddeeyo doorashooyinka inaan dib loo dhigaynin walow guddiga ay ku habboon tahay laakiin waqtigooda inay ku dhacaan aad u jeclahay dii baa yidhaahda. waxaan idinka rabaa codkiina waa ammaana inaadan berito guddoon ku eedaynin cid kale ku eedaynin. maalintaad bisha 12 ay dhacaysa doorashada fursadaad haysataan ma haystaan 13. 12 bishan ayaa waxaa la rajeynayaa in magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu doorto madaxweyne cusub oo hogaamin doona dowlad goboleedka Hirshabelle. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Alfa warbaahinta Jubba Shabelle News magaalada Jowhar.